warcusub.com waxaa hor fadhiya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane gudoomiye waxaan jeclaan lahayn inaan ku weydiino horta inaan noo sharaxdo shaqada baarlamaanka maxay tahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baarlamaanka waa hay'adda ugu sareysa sharci dejinta ee dalka uu leeyahay weeyaan waa xubnihiisana waa wakiilada shacbiga asagana waa codkii shacbiga marka saas daraadeed waxa weeyaan hawshiisa ugu waaweyn waxa weeyaan tan koowaad sharci dejinta waa sharciyada oo xukuumadda ay keenayso ama dalka lagu maamulayo inuu ansixiyo talabaadna waxa weeyaan inuu ku kormeero howlaha dawladda ee xukuumadda ay fulinayso inay habkii oo qaanuunkii dastuurka qabay ay u fulinayso inay ku kormeerto labadaas shaqo ugu weyn hase yeeshee waxaa kaloo uu qayb weyn ka qaataa dejinta iyo maareynta siyaasadda dalka lagu hagayo iyo horumarinta lagu gaarsiinayo dalka ayaa howlihiisa ugu waaweyn. shaqada gudoomiyahana maxay tahay? gudoomiyaha waa afhayeen waxa weeyaan hagaha howlaha baarlamaanka iyo suduudda arrimahooda iyo haddii la ku rooyahay inuu xubnahana ku ilaaliyo inay ilaaliyaan dastuurka iyo shuruucda dalka iyo in uu markaa howlihiisii u agaasimo howlahaas ay u kala fulayaan iyo horumarsi ay u kala horumarayaan iyo u hagaajiyaan. waxaa kaloo howlihiisa ay ka mid ah markii madaxweynaha uu dalka ka maqaya inuu ku simo madaxweyne noqdo dalka sii hayo intaas howlihiisa ugu waaweyn. sharci samaynta baarlamaanka ma dadka hoos miyay ka timaadaa mase waxaa sameeya xildhibaanada? laba nooc weeyaan sharciga hadba waxa weeyaan midkii oo hadba waxay u ku saabsan yahay ka mid tahay badanaaba shuruucdu waxay ka timaadaa laanta fulinta oo ah xukuumadda ayaa soo jeedisa isaga uu ansixiyaa wax uu ka bedelaa wax uu kordhiyaa ama uu celiyaa ama horumarintoodu kala sheegaa. laakiin waxaa jira shuruucda qaarkood kale oo isaga uu toos u curiyo aan idhaahdo oo toos isaga u curiyo asagay ka bilaabataa asaga ansixiya deedna madaxweynuhu u gudbiya inuu saxiixo. labadaa qaybood ay u kala saabsan yihiin hase yeeshee waxaa ka reeban in uusan marna bilaabi karin oo iskiis u samayn karin shuruucda ku saabsan canshuuraha waa inay ka timaada dhinaca xukuumadda. baarlamaankan hadda adiga gudoomiyaha u tahay uu ka degan yahay baarlamaanadii hore kuwii hore qaarkood waxaa lagu xasuustaa kuraas lisla dhacay waa maxay sababtu? shacbiga Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadnay inaan siino baarlamaan karti u leh in uu maareyn karo xallina karo mashaakilada qaranka ay ku fool yeelato inuu ka bixiyo dhibaatooyinka uu ku jiro. saa daraadeed maanta ma joogto aniga wax la yidhaahdo waxay joogtaa sidee baan dalkan u horumarinaa uga bixinaa dhibaatada ku jirto. xildhibaanada oo xubnaha ka ahna baarlamaanka arrintaasi aad bay ugu dharagsan yihiin walwalba ku hayaa arrimaha uu shacbiga ka filanaya inuu hoos uga dhaco ma doonayno. way naga go-an tahay in maarta sida oo asluubta iyo baarlamaanada caalamka ay ku dhaqmaan inaan u dhaqanno in si dimuqraadi ah dastuuri ah wixii xaajood ah meeshii baa looga xaajoodo si degan oo xildhibaannimo ku jirto. marka taa daraadeed waxba fiirin mayno wixii gadaal khibrad baan ka qaadanaynaa hase yeeshee mustaqbalkaan eegaynaa in maarata waxyaabaha shacbiga uu naga filanayo si alla ka cabsi ah oo lilaahi ku jirto inaan u wadba ayaan ku rajaweynaa insha allah wax dhibaatan ilaahay naga qabto. sidoo kale wadamadan Scandinavianka ee anaga ku noolnahay fikradaha way kala qaataan waxbay kala bartaan. wadanka Norway Sweden oo kale waxbuu ka qaataa markii wax cusub ay sameeyaan. marka arrinkan aqoon kororsiga maartay baarlamaanka xildhibaanada ee ku timaadeen Norway waa arrin aad u wanaagsan fikirkiisa iska lahaa soo ku yimi. استراتيجية برلمان وديجي مركي عصبة وحا وديجي أفر سنة استراتيجية هب وكشقينا يعلمها وكالي مالي الشقادي هولها يحلال كلا قرب كسكو وحا قرشاي نوك جران إن أنت يسيت اسكو سمينو أنك حد بعنا أهان أنت يضينا هولغوت كين إن أنكرو قادنا سي أنكرو قادنا وحويان إن قرشاها القدرة إن برلمان كأولي يشو برلمان هذا كلا حرير إنه اللي يشو xiriirkaasoo ka mid ah aqoon iskororsi hadba baarlamaan walow waxba ku fiican yahay baarlamaanka Norway wuxuu ku fiican yahay wadar ogolka sida loo dhiso yani wadar ogolka waxa weeye ijmaac consensus waxa la yiraahdo. marka arrimahaas sida maadaama axzaab kala duwan ay xukuumadooda badanaa ay u badan tahay xukuumadooda inay xukuumada coalition ama xukuumadaha la yiraahdo
dhowr xisbi oo dowladda xukuumadda sameeya ay ku dhisan tahay waxay aad khibrad ugu yeesheen sida loo dhiso wadan ogolka ama consensuska ijmaaca ay ku fiicayaan arrimahaasaa ka mid ah arrimaha aan doonayn inaan ayaga ka baranno sidoo kale waxaanu tegi doonaa wadamo kale oo carbeed oo ayagana aan isku dhaqan nahay isu dhow nahay iyo wadamo kale oo afrikaan ah oo ayagana nugu xaalad ama xaaladaha ay isu dhow yahay arrimahaas oo aan doonayna mar walba inaan ka baranno ka faa'iidaysano si maaragtaa waqtiga nagu soo gaabto maadaama baarlamaanka waqti badan uusan haysanin inaan khibradaha kale ka faa'iidaysano waa lagama maarmaan qorsheyn way nagu jirtaa taas waa waxa fiican mudan gudoomiye Soomaalida Norway waxay ku mashquulsan yihiin caruur badan ayaa laga qaatay waxay ka codsadeen warbaahinta war cusub in xiriir aan la sameeyno dawladda Soomaaliya si ay fargelin ugu sameeyaan dawladda Norway hadda ka hor Hindiya oo kale caruur laga qaatay waa laga joojiyay sababta dawladda Hindiya ayaa fargelin ku soo sameysay marka maxaad ka qaban kartiin arrinkaas baarlamaan ahaan iyo dawlad ahaan marka hore waan kala hadlay arrintaasi wasiirka oo iskaashiga aan kulan la yeeshay waan la hadlay in xafiiskan yiraahdo baarlamaan oo la hadlo arrimahaas baaris qoto dheer lagu sameeyo waxa la ii sheegay in horta waa jirtay dadka ajaanibta ah ama qurba joogta ah in marka caruurta qaarkood marka dhaqanka aan la kala garanin dhaqanka aan la isla garanin oo kale laga qaado laakiin waxaa warbixintii ugu soo gaartay in caruurta lala wareegay ay tiradooda kor u korodhay siba caruurta Soomaaliyeed marka arrintaa waxaa la iga ballan qaaday inay baaris ku sameeyaan oo ay wixii dhabta jirta marka ay fiiriyaan laakiin waxaa laga maarmaan ah la turkeena jaaliyad Soomaaliyeed ahaan inaan iswacyi gelino dhaqamada lagu dhaqmaa iyo shuruucda dalka in la iska ilaaliyo waa laga maarmaan sharciga yani dal walba markaad joogto sharcigiisa inaad ilaaliso waa laga maarmaan iyo hadda dhaqankii oo jiro waxaa suurtoobi karta arrimo badan inay u dhacaan dhaqan Soomaaliyeed iyo dhaqanka oo Norwejiga ah oo marta xagga culture-ka soo jireenka ah oo aan isla garanayn inay wax badan keeni karayso waxaana ka caadi noo agtooda caadi aan ka noqon karnaa dhici kara inay jiraan hase yeeshee wadajir in loo aad wada baartaan waa laga maarmaan oo la iska cashado adoo aad u mahadsan ugu dambeyntii Soomaalida maxaad dhileed Soomaalida oo qurba joogta waxaan oran lahaa ay isku haleeyna kaliya anaga inaan Soomaaliya dijino ka bacdina aad timaadaan waxa loo baahan yahay inaan mustaqbalkayga wadajir aan u dhisano mustaqbalkeena aan wadajir u dhisno taana macnaheedu waxa weeyaan inaad isweydiiso mar walba su'aasha ah maxaad u qaban kartaa dalka Soomaaliyeed adiga qof ahaan iyo koox ahaan in maxaad u tari kartaa oo dhibaatada looga bixin karaa maanta waxay joogtaa yaa Soomaali ahay yaa dalkii u daneynaya joogtaa marka qof walba waxbuu tari karaa yaan lees yasin yani inta aad qaban karto hayasin waxaad qaban karto qabo dalka aad joogto influence ku samee in maanta dhaqaale iyo kaalmo iyo xag siyaasadeed iyo garab istaag iyo iskaashi loo fiiriyo dalka Soomaaliyeed inaad ka qayb gashaan waa laga maarmaan dardaarta iyadoo kooban waxa weeyaan wax badan baad qaban kartaa qof walba oo muwaadin ah isweydiin maxaa qaban kartaa kuna dhaqaaq adigoon cidna sugayn intaas ay iga dardaar aad ayuu mahadsantahay